السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada mar kale sidaan hore idinku sheegay caawa xalfad aad u qurux badan ayaa ka socota wadanka Belgiumka taas oo caawa ay martaqana ka dhigan tahay in la aasaasiyo organization aad u wanaagsan kaas oo martaqana loogu talagalay isku keenida jaaliyada reer Djibouti ee guud ahaan qaaradda Yurub. Xalfadda waxaa jooga dad ka yimid meelo kala duwan oo qaaradda Yurub ah, Faransiiska, Belgiumka, Holland iyo wadamo kale oo aad u fara badan. haddaba waxaa ila joogta walaashay oo ah aasaasaha organizationkan iyada ayaa iga warrami doonta ujeedada organizationka loo aasaasay iyo baahida loo qabay. Soo dhawow. waan dhawahay walaalkeen. maanta waxaan xaggan ugu imanay horta wixiyaan association force et fraternité la yiraahdo. associationgaasi waxay magacaaba tilmaamay waxay tahay horta walaaltinimadu ninkii madiya baa og maragtay marka walaaltinimadu horta dhiiga un maaha jisadkana maaha magaca way ka bilaamataa. muslim baan nahay horta ku horeysa talabaadna Soomaali baan nahay afwadaagta haddana haddaan sii durko reer Djibouti baan nahay. reer Djiboutina qolo walba ay leedahay waxaa degan Afar Soomaalidoodan kala sheegayn Arab waxaan la degaa iyagana maxay Afar markaas magaalada Djibouti waa nooc walba imka lama xamashi Oromo iyo waxaa nagu soo biiray Mareykan iyo Shiina iyo Faransiis nooc walba marka waa wadan aad u furan oo ay melanshku aad u fara badan yahay. marka waxaan rabay in aan ku weydiiyo sababta kugu dhalisay mataqaana aasaasidda organizationkan iyo waqti intee la eg buu kugu qaatay oo aad ka soo fakartay oo aad xiriirkiisa iyo connectionkiisa aad waday. horta anigu qof waxaan iska ahaa kolkii horeba kaligeed shaqaynaysa qofna ima ogeyn dowr badan oo faamiyan gargaaray. horta anigu gargaarka dee anigu kaligay maahe dad baa dee maaragtay iyagana lacagtooda jeebkooda wax ka bixiyey laakiinse aniga unbaa kaligay wax dee doodooniyo telefoona u diraa lacag ka soo guraa marka hawshu horta aad bay igu cuslayd anoo hooyo ah oo caruur haysta aad bay igu cuslayd kaliga ahaan. markaan arkay natiijada waxaan aan qabtay oo dee horta ilaahay dee ugu talagalay arsaaqadooda samada ka timaada qofkaana ilaahay baa u qoray anu bas waxaan ahaa sanqaadi marha marka waxay noqotay inaan daal badan kali markaad shaqaynaysid waxaan siri dadka walaalaha iyagba dad sidaada way jiraan oo wax qaban kara inay iyagana hawsha ila wadaagaan ay soo gacan qabtaan ay soo garab joogsadaan. aad ba maasantahay marka waa hawl runtii culeyskeeda leh. ilaahay waxaan ka rajeynayaa in adiga iyo mataqaana dadka kale idinla garab galo. maxaad ugu baaqaysaa bulshada reer Djibouti ee ka daawan doonta guud ahaan qaaradda Yurub iyo adduunka oo dhan iyo kuwa wadankaba inay mataqaana hawshan kala qayb galaan waxa baaqo u jeedin lahayd? waxaan oran lahaa horta gacalin kaligeed isma meedho dadkeenu anoo dadka kala qaadaynba horta walaal baan nahay. muslimkaana mideeyey haddana afkaana mideeyey haddana Djiboutiyaanteegana mideeyey oo nooc walbaba leh. marka waxaan oran lahaa wadanada Afrikada aba Carabaha haddaad aragti horey u mareen associationadoodu wax badan bay qabteen oo gaalaayo iyo wax waaweyn bay sameeyaan laakiin saanaku wax waaweyn ma sameyno oon faamiga un baan caawinaa. maanta inaan faamiga aan ka ballaarano oon dadkeena meel walba aan joogno inaan iscaawino annakoo iskala qaadayn annakoo qolo ciyaarayn oo dee walaaltinimadu naga dhaxayso. walaaltinimadu marka magaca dhanba waa walaaltinimo ka dhigan tahay association walaal iyo inaan ahaano dad xoog iyo maskax iyo fikir iyo xoogba isku iskaashanaya inaan noqon insha Allah. aad u mahadsantahay dhawaan maaragtay khudbadihii gabayadii heesihii iyo farxadii ay bilaaban doonta
waxaan idin rajaynayaa inaad la socon doontaan waxa soo socda dad badan oo hadli doona oo madax iyo mataqaanaa meelo kala duwan ka yimaaday adigana aad baa umahadsantahay inaad nagu casuunto waan mudan tihiin waan dhowahay ilaahay waxaan daanin niga rajaynayaa intaad soo garab joogteen ilaahay nin garab joogsado inta halkan horta waxaan ka salaamayaa presidentgeega Ismaaciil Cumar Geelle iyo xaaskiisii Khadra Maxamuud Xayd horta waxa la yiri awrka hore socodkiisa leeyahay maamadaas horta wax badan bay qabatay dadka agoomaha Ismaaciil sidaas leeg presidentgeega wuxuu qabtay dadka indhoolaha maartay dhibaatada maxda handicapka haysato uu aad u soo garab joogsaday marka anigana waa wax maad aragtay itaabtay on ku hambalyeeyo maanta inay iyagoo maanta de mas'uuliyiintii reer Djibouti ay yihiin wax fiican qabteen annaguna waxaan ku dadaalaynaa inay linka ee mareen aan marno waxaan ku sii dadaalaynaa inay caruurteena naga dhaxasho taas baan ku rajaynaynaa annagu dhulkan horta dhul Yurub baan joognaa on cidla ah oo wadankeeni hayn oo diinteeni jirin marka ciyaalku inay naga halaabaan ay naga noqdaan de gaalo ma rabno marka dadkan aan isku imanayo waxay dhalinaysaa inay ciyaalkeeni dhexdooda isgurgursadaan ay isbartaan ay dhaqankeeni iyo diinteeni inaan iloobin iyo luqadiiba inaan ilaalino baan de adigu rajaynaynaa insha Allah waxaan rajaynayaa inay maanta noqon doonto maxaadeen association guuleysata oo la tartamta caalamka insha Allah aad baa mahadsantihiin waad maqlayseen marka waxaad la socon doontaan qaybaha dambe khudbadaha waxaan jeclaan lahaa inaan ka yiraahdo waad mahadsantihiin qalbigaan iga usoonahay saad isoo garab joogsateen aad baa mahadsantahay mar dhow khudbadihii iyo bilaaban doona waxaan rajaynayaa la socon doontaan runtii habeen aad qurux badan way aad baa mahadsantihiin